السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي غالية دمانتي سو dhawaada caawa waxaan rabaa casho yar oo fudud in aan la share gareeyo xitaa ilmaha markaad dibadda ku haysan karto aad ugu sii ridan karto caagooda markaad ciyaar geynayso ama marka iskoolka lagu dhado wax soo qaado kale sida ugu fudud aad u sameyn karto xayawaanka sameynayna waxa weeye ukun iyo farmaajo iyo subag yar ee badharka in yar qaab baan tusayaa laba kala nooc ah baan sameynaya roodhida madow iyo roodhida cad baan ka sameynaya hadda laba xabo oo kunaan soo qaaday midiimada ayaan ku shubay waxaan ku darayaa in yar oo milix ah waxaan sameynayaa kale markaan inta yar milixda ku daro waan ku walaaqayaa inta yar milixda aadayo macaantay caruurta ugu jilicsan tahay dhaxda farmaajad ka gelinaysaa kulli waa arki doontaan insha Allah ukunta ayaan imika isku yara walaaqayaa markaan ukunta isku yara daro markaan hadda ukunta isku yar daro waxaan kaloo ku darayaa in yar oo sinjibiil oo meel dheera idgoon yar ba u yeelaysaa aad ba u fiicantahay kaliya ukunta kaliyana waad samaysan kartaa kolba wixii aad haysto in yar oo kale filfila baan ku daro filfisha cad ah ee aan kululayn labadaas ayaan saas ugu yara garaacaya in yar oo milix aan ku daro wax weyn maaha aadna oo jilcsantay oo macaanta qofka haddaan cunto ka gaarsiisan karay subaxiyo kale quraacda oo kale cashada oo kale haddaan waxba u karin karaynin imika waxaan sameynayaa labada roodhida ah laba xabo oo roodhiya waa roodhida balbalaaran ee la marsado malmalaadaha marka roodhidu waa roodhidii cadayd inkastoo iyaduba ay galley ka samaysantay laakiin haddana yarka roodhiyahan isku mid ahayn oo kala qaalisan tani marka iyaduna waa cadaan iyo farmaajada iyo jeexaa yar ee badharka ah ee subaga ah waxaan sameynayaa hadda maqliga ayaan dabka soo saartay jeex yar ay subaga habaan ku riday waan ku walaaqayaa waan ku dhalaalinayaa dabkana low baad uga dhigaysaa inay ku guduudato ku casaato qurux ku noqoto ukunta ku bislaataa la rabaa laakiin hadda dabka ku dalacdo way kaa gubanaysaa gubnood bay kaa noqonaysaa marka hadda waxaan sameynayaa subagii ayaan ku walaaqayaa waan ka yara saarayaa inta yar subaga waan ka saarayaa maadaama intaas maartay hore ay samaysantay hadda waxaan soo qaadayaa waxaan ku shubayaa ukunta dabkana waan sii gaabinayaa hadda ukunta markaan ku shubo waan kala bixinayaa ukunta dabkaan u yara gaabinaya dabka markaan u yara gaabiyo ukunta wakaas roodhida ayaan soo qaadayaa hadda labada xabee roodhida baan dhex dhigayaa roodhida markaan dhex dhigo roodhida waxaan sameynayaa xagga kale ayaan u gediyayaa roodhida lafteedan xagga kale u gediyayaa ukunta ma gediyayaa ukunta gadaal baan ka gediyayaa hadda waxaan sameynayaa roodhidii iyo ukuntii ayaan isla gediyayaa maadaama ay hoosta ka bislaatay okay quruxda macaanka jileeca haddaad ilmaha taa iyo koob caana isku siiso subaxii adigaaga weyne subaxii ku quraacato habeenkii kale ku cashayso waana cunto fiican oo borotiin leh oo wanaagsan ilmahana u wanaagsan adigana ku wanaagsan marka qof kasta waa baroobeyn kartaa waad samaysan kartaa farmaajona dhexday ku leedahay iminka waxaan soo qaadayaa xabad jiis ah ama farmaajo kolba sidaa u taqaaniin ay jilicsan ee hamburgerka la dhex gashado taasaan dhexda u dhigayaa iminka subagan hareeraha ka sameynaya ka saaraya markay ma fiicna in ay kaaga dhagto oo maqliga ayaa iska ka qabsadaan cuntadu maqliga iyo cuntadu inay iska ka qabsadaan ma wanaagsana hadda waxaan sameynaya waan isku soo gediyayaa idinka hadday la arki doona marka asxaabta ha moogaanina subscribe like share haddaad ka heshay commentiga hoose fariin iigu raab dhiirigelintiinu waa muhiim taladiinu waa muhiim aad baan maaragtay nii salaamayaa dhammaantiin rag iyo dumarba waxaan leeyahay talada wanaagsan ee dhiirigelinta wanaagsan taladu marna aday kugu jirtaa marna walaalkaa bay ku jirtaa aad bay u fiican tahay in la kala warqaato hadda waxaan sameynayaa waan kusoo gediyayaa way bislaatay ukuntii iyo roodhida way isku bislaadeen waxaan sameynayaa waan kusoo gediyayaa okay saa markaa isugu soo gediyo guduudka quruxda badan lay soo baxday xagga kale haddana u gediyayaa roodhida imika taa guduudka aadka u macaan bay soo baxday caawa intaas ayaga casho uga dhigay labada xabe kala nooca mid waa qamandidaas midna waa tacad oo yana qamandi bay ka samsatay waa qamandiga cad midna waa qamandiga madow weeye labada nooc weeye ee roodhidu ka samsatay aan ka sameynayo mid walana laba xabo oo kunan ku sameynaya hadda imika jaa taasi saasay diyaar ku tahay xagga kale aan u gediyayaa imika
agalan gudeeya daawo quruxdeeda casaankeeda dhaxdana farmaajada bay ku leedahay busbaas dad u baahantahay waad ku darsan kartaa haddaad maaragtay wax yaroo jilicsan intaad jarjarto oo kale xabuub oo kale waad ku darsan kartaa wataa hadda saasay kusoo baxday macaankaasay kusoo baxday waan kala jarayaa fiiritii hore wataa laakiin yana waan idin tusiya sidaan u sameynayo iminka wataas saasay jaa diyaar ku tahay farmaajadii weeye waxaa inii muuqdaa dhaxda saasay uga da-aysaa maasha allah farmaajaduna aad bay u fiican tahay ilmaha iyo qofka weynba waa u fiican tahay calciumka lafaha ayaa aada ugu wanaagsan tahay qofka waxay ka qayb qaadataa koritaankiisa lafaha oo kale aadba xilliyada qababaha oo kale aad bay u fiican tahay imika waan soo diyaariyey labadiiba saxnigan kusoo riday aloorata kalena waxaan tusayaa cagaarkaa sidaan u sameynayo labadaba in aragtaan baan rabaa maadaama aan casho yarid ka sameysanayay intaa yaree fududoon 10 daqiiqo gaadhaynin waxaan is idhaa asxaabtaadana la sheer garee hadda iyadana waxaan soo sameynayaa wataa labadii xabee farmaajada iyo 4 xabee ukunta iyo subaga badharka baan iyadana soo qaadayaa maadaama maartay aanu nahay family ballaaran inta saaca lagu cashaynaya magaada midimada soo qaaday labadii xabee ukunta ahaa laba xabban marba laba xabban sameynaya hadda afarta wada sameyso roodidiiba mar walba waxay ka noqonaysaa laba marka ma fiicna inaad laba iyo laba isku sameysaa ayaa aad u wanaagsan marka hadda waxaan ku darayaa tan kamsar caleen yar baan ku darayaa waxaan kaloo ku darayaa in yar oo milixa waxaan kaloo iyada ku daray markii tan iyada ana isticmaalaya ta kalena ilmaha siinaya waxaan kaloo ku darayaa in yar oo khamuuna oo isku jirta oo nooc walba leh khamuunta nooc walba way leedahay waan isku soo shiitaa ayaad inta yar ku daraysaa aan badnayn waxaad kaloo ku daraysaa markaad intaas ay isugu sameyso ee ay isugu shiido say isugu walaaqdaan ka wadaa sooriya waxaad sameynaysaa baaquligaad soo qaadanaysaa bahalka dabka laga saaro waad ku shubaysaa sidii tii horun baad ugu shubaysaa subagiibaad dhex dhigaysaa markuu subagu sidaa ugu yara dhalaalo waxaad qaadanaysaa waad ku shubaysaa dabadeedna wakaa subagana waad ka dhex saaraysaa inta yara kaa soo hadha marka asxaabta dhammaantiin dhiirigelintiinu aad bay wanaagsan tahay waa wax aad iyo aad u macaan u jilicsan wax kasta oo aan baroobeeyo ama aan israda wuu wanaagsan yahay waxaan jecelahay inaan la sheer gareeyo in la wadaago maadaama maaragtay aan dee u diyaar garoobay inaan dee publikada wax la wadaago diyaar waxaan ahay wax kasta oo aan dan moodo inaan la wadaago idinkuna subscribe iyo like iyo share iyo commentiga intaba way ila wadaagi kartaan wixii macluumaad ah hadda waan soo qaadaya waxaan dhex dhigayaa roodhida waxaan sameynayaa oo kale roodhida markaan dhex dhigo roodhida waan gadiyayaa roodhida marka aan gadiyo iyadana isla sidii un bad u sameysan macnaha waxaan sababta inay tusayaa waxay tahay inaad sidaad jeceshahayba u sameysan karto marka hadda markaan soo qado weligaana saliidda iska ilaali labada saliidda cad markaad haysto waxa lagu qaatay inaad subaga badharka wax ku sameysato isaga caafimaad badan isaga iyo saliidda cad sidoo liivada maaha saliidda cad marka hadda waan gadiyay kaana guduudka quruxda badan laan ka dhigay hadda waxaan sameynayaa hareeraha ayaan ka soo kicinayaa waan isku soo laabayaa horigu soo laami waayay okay saasan isugu soo laabayaa dabadeedna hadda waxaan soo qaadayaa farmaajadii markaan hadda soo qaado waan saarayaa sidii tii hore u dabka weligaa iska ilaali haddii dabku kugu dalacan yahay waxba ma sameyn kartid laakiin haddii dabku low kuu yahay dabku kuu qiyaasan yahay wax kasta waad karin kartaa waxay u fiican tahay xitaa iminka inamada shaqeeyo oo kale ee subaxii degdegsan ayaan quraacanayn intay saa u samaystaan oo ama caag yar kusii ritaan ama bac yar kusii ritaan ay shandadooda ku ridanayaan hadhow markay shaqadooda dhammaystaan koob biyo iyo cuntadooda yar way cuni karaan waa cunto aada u fiican ukuntuna sideedaba aad bay u fiican tahay xagga borotiinka xagga nafaqada roodhida madow oo kalena waa ogtiin caloosha iyaduna u wanaagsan tahay ay aad u fiican tahay iyaduna marka hadda iminka kana aan sameynaya waa roodhidii madoweyd hadda waxaan sameynayaa isagina saasaan jaa kusoo diyaariyay isagina waa diyaarsan yahay waa keeshan baan u malaynayaa aad bay u macaantay baroobe markaad baroobaysa ayaad kasoo jawaabi doontaa insha allah
hadda waan kasoo qaadayaa. Markaan kasoo qaado waxaan soo qaadanayaa saxni loogu talagalay inaan saartoon ku cashada ku rido. saxnigaasaan ku diyaarinayaa. wata qurux jilaac ilmuhu saas u qabsanayaa oo dambi ka siinayaa baan ku odhi. wata saasaan kala jarayaa. asxaabta aad baa u mahadsantihiin. waa aragtaan qaabka aan u soo sameeyay. aad iyo aad baan inigu mahad celinayaa sida wanaagsan ay la socotaan. waxaan inigu codsanayaa insha Allah wax kastoo aan soo geliyo kale waxaan soo gelin doonaa insha Allah qurxinta wax kastoo aad maaragtay iga soo dalbataan. idigana dhiirigelintiinu waa muhiim. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. subscribe, like, share intaba comment intaba aad bay muhiim u tahay. aad baan idin salaamayaa. habeen wanaagsan baan idin leeyahay.